السلام عليكم أصحابي maanta waxaan noo hayaa digaag aad u macaan badan inaa ka faa'iideyso insha Allah biidhmillaah kariim digaagan aad ku macaansanayna digaag basashii aan kusoo ridnay birtaawada marka digaag aad u macaan badan marka hadda waxaan ku darayaa sinjibiil iyo toon tan waa toon aan ku daray marka sinjibiishii hadda ku darayaa marka waxaan rabaa inaan isku walaaqo yacni basasha iyo digaaga iyo basasha iyo sinjibiisha iyo toonta aad ay u carfinaysaa marka basasha lagu shiilo toonta iyo sinjibiisha la isku shiilo aad bay u macaan badan yahay u caraf badan yahay udgoon miiran waaye marka hadda waxaan ku darayaa digaagii marka waxaan soo dhexgelinayaa digaagii iyo basashii iyo toontii aan soo dhexgelinayaa sinjibiishii waan isku walaaqayaa maasha Allah inaa aad isu dhexgeliyaa rabaa si fiican inaa isu dhexgeliyo marka insha Allah biidhmillaah kariim waan daboolayaa xoogaa yar marka hadda waxaan ku darayaa cusbaan ku darayaa marka hore cusbo kuma aan darin gadaalaan hadda kaga daray cusbo marka hore waxaa is dhexgelinayay basasha hadda waxaan ku daraa huruudii aan ku darayaa marka laasim huruudda waxay u yeelaysaa tasti u yeelaysaa huruudda digaaga cuno kasta waa lagu darsadaa huruudda maasha Allah marka macaan iyo dhadhan ay u yeelaysaa xawaash oo isku dardar ahna waa kaas oo ku darayaa xawaash oo dhowr nooc ah yaanyada waa soo xoqay 2 xabo yaanyo aan soo xoqay aan ku daray marka waa is dhexgelinayaa maasha Allah saas isu dhexgelinayaa shishiid oo noocaas ah baakadkaas ku jiraan ku darayaa shishiidu taste fiican u yeelaysa ay dhadhan sababtoo anaga suugada waxaan ku cunaynaa maanta afurka jabaati waaye jabaati u sameysanaynaa marka shishiida dhadhan ay u yeelaysaa maasha Allah taste shishiidu way wanaagsan tahay maasha Allah marka waa is dhexgelinayaa aad baa isu dhexgelinayaa shishiid iyo digaagii iyo yaanyadii aan hore ugu daray marka aad iyo aad bay u macaan badan tahay baroobeya asxaabey digaagan waa digaag aad ka heli doontaan hadduu ilaahay raali ka noqdo maasha Allah tabaarakallah ma aad bay u macaan badan tahay baroobeya wax kasta waa ku cuni kartaa marka hadda waxaan ku daraa fiyaasi aan yar u soo jaray aan ku daray si kuskuusan oo yar u jaray aan ku daray fiyaasiga marka fiyaasiga haddii aad badan tihiin qiyaastaada ku darso digir gasaca digirta aan ku daray gasaca digirta oo cad oo yaanyada wadata aan ku daray marka waxaan rabaa inaan is dhexgeliyo sidaan aan isu dhexgeliyo maasha Allah markaasaan isu dhexgeliyo baradhadii iyo wixii oo dhan iyo digirtii digaagii wixii oo dhan saa markaan isu dhexgeliyo insha Allah ilaahay idinkiis waxaan ku darayaa basbaas guduud ama basbaas xawashi saa u taqaanaan aan ku darayaa marka waa is dhexgelinayaa insha Allah waxaan ku sameynayaa birtaawo marka digaagan asxaabi baroobeya wax kasta waa ku cuni kartaa bariis waa ku cuni kartaa waxaad ku cuni kartaa canjeelo rooti wax walba ku cuni kartaa insha Allah marka waxaan ku daray karooto xabad karooto ah oo aan jarjaray aan ku soo daray waa ku daboolayaa insha Allah in yaraan sugaynaa hadda waan fiirinaynaa tastigiisa waa kaas maasha Allah waxay ku soo bixaysaa innaba caadi maaha asxaabey hadda waxaan ku daraa in yar oo rosemary ah aan ku darayaa rosemary marka rosemarygii aan rabaa insha Allah inaan is dhexgeliyo maasha Allah asxaabey baroobeya aad ay u macaan tahay aad iyo aad waa ka heli doontiin insha Allah waa ka heli doontiin soonkaada wax walba marka hore sambuuska inta hore dadka way ka hor imaanayaan marka cashaa la iskaga baahaya filfil aan ku daraa hadda black pepper iyo filfil saa u taqaaniin intaba saa u taqaaniin filfisha waxay u keenaysaa taste xoogaa yar oo waxaan ku daraa qaandada yar oo camal qiyaas ah barbarika ayaan ku darayaa marka horena filfisha shiidneed marka barbarikada xataa idan dhadhankeeda wadataa
chicken masala oo qaanto qiyaas qaantada yarta ah qiyaasteeda chicken masala ayaan ku daraa. marka waxaan rabaa inaan isku walaaqo oon isdhexgeliyo wixii aan ku daray iyo digaagii inaan isdhexgeliyo sidaan aan iskugu walaaqo. maasha allah waxay noqonaysaa aan ku dhahay innaba caadi maaha ay noqonaysaa hadduu ilaahay raali ka noqdo. asxaabey idinkana baroobeya marka wax yaraan sugeynaan daboolaha ka qaaday. marka waan fiirinaynaa waxaan ku daraa kabsar caleen iyo toon aan isku soo tumay. toontii iyo kabsar caleentii ayaan isku darayaa. barbarooni aa u dhiman insha allah aan kusoo dari doonaa. hadda kabsar caleentii iyo toontii aan isdhexgelinaya insha allah hadduu ilaahay raali ka noqdo isku walaaqayaa si isu dhexgalaan insha allah biidnillahi kariim hadduu ilaahay raali ka noqdo. asxaabey baroobeya barbaroonigii aan hadda ku ridayaa. barbaroonigii jab barbarooni aan soo jarjaray dhudhub usoo jarjaray aan ku daray. marka barbaroonigii waa inaan geliyaa dhaxda si kastoo caraf u yeelato barbarooniga. aad inay u bislaatana ma la rabo laakiin adiga saa jeceshahay ku sameyso. haddana kabsar caleen iyo nacnaac ama mintiisa u taqaanid ayaan soo jarjaray aan ku daray. marka insha allah intaba tasty u yeelaya in yaraa ku daboolaya way noo diyaaray noo tahay maasha allah tabaarakallah. carafta udgoonka ma malaysan karta asxaabay kusoo dhawaada. hadda subscribe-ka iyo like-ta waa xaggiina maasha allah kusoo dhawaada. suugadeenii way noo dhamaatay meeshaasay noogu eg tahay suugadii hadduu ilaahay raali ka noqdo. aada u macaanta anaga jabaati aa ku cunaynaa. adiga waxaa rabtid ku cun rooti ku cun ceesh ku cun jabaati ku cun bariis kor saaro wax walba wuxuu diidaya male. maasha allah kusoo dhawaada asxaabey baroobeya aad buu u macaanya aad iyo aad. hadda waxaan soo diyaariyey cananaas. asxaabey waxaa la socotaan cananaaska inuu sidaa markii loo cuno inay afka ama ani kuley wuu i dhibaa. marka cananaaska waxaan ka sameynaa sida cananaaska gasaca oo kale oo gasacyada oo originaalka oo supermarketyada lagu gado. marka waxaan sameeyey koraan kasoo fiiqay dhaxdaan hadda ka saarayaa. marka waxaan rabaa in cananaaskan aan sameeyo sida oo fruit ahaan loo isticmaalo. sidee loo isticmaalaa marka insha allah nala daawo nala soco sidaa yeeli doono insha allah biidnillahi kariim. hadda waa soo wada jarjaray digsigana biyo kusoo shubtay. marka digsigan markaan biyo ku shubtay adiga ilaa 2 galaas oo biyo aan kusoo shubay waa xabad cananaas ah. qiyaastaada adaa garanaysa hadduu cananaaska badan yahay dadkaaga badan yahay biyaha waa ku badsan kartaa. marka waxaan hadda ku darayaa sokor bakeerigaas afkiisa adiga qiyaastaada ku darso. aniga intaasaan ku darsanaya. marka sokortii iyo cananaaskii ayaan waxaan saaray dabka. marka waxaan rabaa xoogaa yar inuu karkaro siduu fruit u noqdo sida gasacyadoo kale. kiimika malaha waa fresh maasha allah tabaarakallah. marka saan wax yar uu karkaro aadna looma bisleynayo laakiin xoogaa yaruu adiga in yar 5 minute oo kale. marka waan kasoo dejinay waa kaas asaasi noqotay talaajadan geliyey waan kasoo dejinay waa kaas iyadoo qaboob ah baaquligeena ku shubanay maasha allah tabaarakallah. saasuu diyaar asagana noogu yahay. cananaaskeena ka faa'iideyso. haddaa cananaaska ku dhibaayo cananaaska keligiis inaad cuntid sidana uga samaysan kartaa. casuumaadaha wuu ku anfacaa waa u samaysan kartaa. kiimika malaha maasha allah asxaabey.